السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابta qaaliga ah channelkay kusoo dhawaada maanta waxaa rabaa inaan ila qaybsado sidaan u suubiye mango lassi iyo Bombay chicken biryani insha Allah waa cunto hindi oo aad u macaan badan markaa chicken biryani suubsanayo saan le u suubsadaa maasha Allah caadi ma aha haddaa ka hesheen waa kaas insha Allah ilaa dhammaad sii fiirsada sida aan u suubiye insha Allah aan ila qaybsanaa wixii spices ku daray dhan iyo mango lassigana sidaan u suubiye meeshaan waxaa kusoo diyaarsaday 2 xabo bool hal chicken aan ku jiro midka kale waa empty dhinacana waxaa ii saaran plain yogurt oo flavor lahayn la rabaa insha Allah 3 xabo tuun kabsar caleen huruud xawaaji kaamuun iyo paprika iyo xawaajiga curryga waxaa ku jiro Bombay chicken biryani mix waaye kan spices of flavor macaan iyo cusbo intaasaa ii saaran boolkii kale oo emptyga ahay waxaan ku shubayaa 4 qaado oo yogurt oo plain markaas kabacdi waxaan ku daraa spiceskii dhan oo hadda niitisaayo cusbada Bombay mix huruud xawaaji next waxaa ku daray xawaaji kaamuun paprika iyo tuuntan waa ku daraa 4 xabo tuun waaye haddii sabanjabiil ku yaalna waa ku dar kartaa insha Allah oo shiidan marka intaas waa mix garay waa kaas chickenkiya ku wada shubay kabsar caleentana waa ku daray sidaan oo noqday waa kaas wax yar waxaa ku daraa saliid cadday waaye waa qasaa asina markaas kabacdi waa kaas hadda waa diyaar falanjeerka gelinaa 2 hours oo falanjeer ku jirnaana insha Allah asxaabta 2 saac kabacdi waa hadda maraqiga diyaarina insha Allah meeshaan waxaa ii saaran bay leaves kaamuun kabsar caleen 4 xabo yaanyo yaan shiishiid basbaas 3 xabo 2 xabo basal qarfo intaasaa ii saaran inta insha Allah iyo heel marka waxaas dhan waa dhaqdhaqay waa soo jarjaray hadda saliidiya digsiga ku shubayaa saliidda markay soo kululaato basashiyaan ka bilaabaa insha Allah markaas basashiyaa saan walaaqooyaa for at least 10 minutes camal markaas saatee noqonaa insha Allah waxaan ku daroyaa bay leaf iyo caraftii kale hadda nitisaaye marka intaana insha Allah isku laaqa caraf as noqday intaan hadda meesha dhan jikadana aad u soo carfoosaa maasha Allah markaas maxaa la dhahaa diyaar saamarkoo soo noqdo oo 5 daqiiqo camal yaanyada lagu shubaa yaanyada waa soo jarjaray yariis oo isku dhegdhegan yahay laakiin yariis u jarjaray asaa kala foqfoqaa insha Allah intaan hadda dalac bilaashka camal noqonaa wakaas waxaa kala niga hilmaamay cusbana waa ku daray saa markoo noqdo insha Allah chickenkiya ku daray oo falanjeerka ugu jiray kan tartiiba isku walaaqay waa isgaarsinay maraqa kuley markaas waa la daboolaa at least 25 minutes camal inuu ahaada la rabaa saas ilaa nus saac oo qaadanaa sometimes intoo chickenka oo ka bislaanayo sidaan la rabaa creamy oo ku noqdo maasha Allah marka waa isku daboolaa 25 minutes kabacdi maraqa dhadhaminaa cusbo hadoo lacal ku yaraaday waxaasna laga dhaminaa hadda spice jeceshahayna spice oo basbaas zaid markaas oo kusii darsan kartaa insha Allah intoo chickenka sii saaran yahay
oo ka bislaanayo basashaana hadda oo baryaaniga lagu carfi lahay bariiska korkiisa kaasaa sii dubanaya hadda. markaas kalarka adi sidaa jeceshahay ka dhigi kartaa, saan hadaa rabto ku dhaafi kartaa, ama brownkan more oo kasii dark inuu noqdo, dark golden brown camal. Kan ani hadda kalarkan aan jeclaaday, soo saan markuu ii noqdo waa ka bixinaa wax yar ka bacdi. haddii rabtid waa sii gaduudi kartaa more, like xareer oo kaa noqonaa cuntada dhan haddii zaaid usii gaduudisid. marka saan enough waaye. marka waa kaas saliida kamiira insha allah, markaasa ka bixinaa. laakiin basasha waa diyaar. bariiskaas oo dhaqay waa ii qasnay wax yar. bariiska intaa ku shubay biyaha u soo badiyay because waxaa rabaa bariiska sida baastada camal inaa ugu miiro, biyaha extra ku shubay. waaka bariiska saa markuu noqdo waa diyaar. baasta miir kale ku shubay waa miirma, and then si fiican inuu kugu karsamo ma la rabo. kii oo kalarkana waa kan waa diyaariyay insha allah. maraqii waa diyaar oo baryaaniga. bariiska halka layer koob ku shubayaa. haddaa rabtid maraqa half kala dhigee, 2 qayb ka dhigi kartaa dhaxda si uu gelisid maraq, ama sidaana u subsan kartaa optionka kale. yani kalar kale iskaarsinooya hadda iyo basashii. marka layerka kooba intaan ku shubay, layerka labaada haddana aan saarooya bariis. markaas kalarka inta kala soo heray food kalarka, basashii dubnaay, iyo waxaa kala saaraa kabsar caleenta. kabsar caleenta wayna carfinaya cuntada, wayna kalar quruxna way siinay. marka basbaaskan waa saarooya inaa ku huuriyaa rabaa insha allah. waa kaas asxaabta sidaan inoogu soo baxday baryaaniga, maadaama oo also bariiska oo si fiican u karsamin, yani wax yariisa oo dhima bariiska waa ugu talagalay. marka kana ku daboolaa aluminum foil, dabka u gaabina. marka insha allah haddii rabtidna ovenkaa gasha kartaa, laakiin dabkana waa lagu dhaafi karaa, asaa si fiican usii karsamaa insha allah. waxaa kalaa niila shargareynaa sidaan u suubiye mango lassi. waxaan ku darooyaa mango oo cimbaha oo gasaca ku jiro. markaas wax yar barafa ay ku jiro inta, iyo yogurt, sokor iyo caano. intaasaa ka suubinaa insha allah. haddaa rabtid cimbaha oo shiidan waa laga isticmaal karaa. marka caano waa ku daray. haddaa oo biyo rabtid caanaha le u badinee, haddaa oo thick rabtidne yogurtka u badinee waay. marka ani noocoo thick ahaa suubinooyaa. markaas 2 gasaca ku shubay oo cimbaha, kabacdi waa shiidaa insha allah. nutribullet si fiican u shiidaa smoothiga. markaas mango lassi waa smoothie oo hindi style waaye. bakeeriga 2 xabo kala shubaya insha allah. wax yar tig waa ujeedin. hadda oo jeclaan tig waxaa suubinay waxaa u badinay caanaha le u badinay. barafna wuu ku shiidan yahay, soo marka qaboob waaye. wax yar saffron oo aan saarooyaa. bariiskii hadda hoos maraqa saan ugu gedgedinoyaa tartiib. marka insha allah I hope inaad ka faa'iideen asxaabta oo ka hesheen videogan. haddaa jeclaatay asxaabtaada kale ula wadaag insha allah. like, comment and share. aad iyo aadaan igu mahad celinaa daawashadiina wacan. jasaakallahu khayr.